aniga hadda kula hadlaaya shalay doonaan diray doontii aan diray 3 qofooda saareed 3 qof saareed ilaa hadda lambaroodana ma hayo magaalada Muqdisho 48 saac ee la soo dhaafay waxa laga dareemayay dabaylo xoogan oo kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka qaarkii iyo kalluumaysato doonayay inay u jilaabtaan bartamaha badda magaalada Muqdisho waxayna saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho dabaylahaasi oo aad u xooganaa oo habeenkii xalay iyo waliba maanta qaybo ka mid ah laga dareemayay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiinay sida ay u arkaan dabeelaha noocaana iyo haddii ay hore u arki jireen ma lagu noolaa kar xalay xataa xaafad suuqa xoolaha ka tirsanaan deganaay jiingadan ka deganaay jiingada korayba ka bidabo xaafada kaliya maan xaafadaha dhan waay 5 xaafad camal ah kor ka bida marka saaka musmaaraha lagu kawinooyaaba dhismaa lagu celiyay mar labaad wali ma dhacdo dabeelahan camal wallahi saaxiibkeeyo dabeelahan oo kale weligay Soomaaliya inay ka dhacdo ma u maleeyayno tan le hadda le nagu cusubtaa saaxiibkeeyo ilaahay naga badbaadiyo laakiin xilliga hore aan joogi jiray mana la gelin waxaan kullee waa macsuul ilaahay kamida waxa sheegi karo qaar ka mid ah doonleyda ee kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa noo xaqiijiyay ilaa iminka inay maqan yihiin qaar ka mid ah dadkii kalluumaysanayay kuwaasi oo badda ku maqan xilligii imaan jireen la gaaray taasoo baqdin ka qabaan dabayluhu inay saameyn ku yeesheen 48 saac ee la soo dhaafay dabeelaha laga dareemayo magaalada Muqdisho waa kuwo aan waayahan la dareemin isla markaana u muuqda inay yihiin kuwa aad u xoogan Abdulcasiis Soomaali Cable magaalada Muqdisho shalay aniga hadda kula hadlaaya shalay doonaan diray doontii aan diray 3 qofooda saareed 3 qof saareed ilaa hadda lambaroodana ma hayo wax ka soo tafaasiil sheegana ma hayo 12 saac iyo baraan igu dambeysay 3 ay ahaayeen 3 mid Janaay Allah mid Aweys Allah mid kalena Abduqaadir Allah shaqada marka ayadoo u socdo saamad doon kale la socotay doonti kale la socotay way imaaday haddii aan wareysano waxay leeyahay 9 saac aan noogu wardameysanay markaas awood ilaahay lama tabar loo meeli karo wax la yaabo wiligeed la maqli jirin ayay noqdeen waxaan Soomaalida dadweynaha waxaan ka codsanaynaa in dhibaatada dadka hayso in macna ilaahay noo baryaan oo noo soo kaalmeeyaan kaalmo ilaahay noo baryaan shaqada aad ugu dhibanaa horta wax soo saarka aad u leeyahay dabeelo zaadna waa jiraan ilaahay noo kaalmeeyo waa baasha aad u xun tahay dadkana cabsiweyn ayaa ku jirtay aad jaar Soomaali ka barto oo mahad celinaya maadaama fariinta ay gudbinayso oo aniga naf iyo maal ay naga maqan yihiin oo xalana aan ku joogno meena si kurba leh saakana qorto aan leeyahay ilaa hadartan afar waxa maqan 3 raga oo xalay ay shaqo tageen kana saaray motor faarbood kana saaray المعان بدنا وهذا شقو حالي إلى هذا وحكي سجين على شيء كرين دبالة حن وايد عين ما لو تمام كرا ماله إلى هذا مغل كودو نلا ما هيو وحيو السعودين شقو اللي بحي 6 عين جاستاي هامين كبد ديجنا عين وايد دوبرين سيد ويل لا جاستو وراء العين واحد على ساعة 2 ساعة 6 ساعة وأنا بارتو ولا لا يعين وقت جالس بدل ولا واي ما دام عبسين القوي سيدا إلى هذا تام مغل كيلو ولا مركا qaar ka mid ah doonleyda ee kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa noo xaqiijiyay ilaa iminka inay maqan yihiin qaar ka mid ah dadkii kalluumaysanayay kuwaasi oo badda ku maqan xilligii imaan jireen la gaaray taasoo baqdin ka qabaan dabayluhu inay saameyn ku yeesheen 48 saac ee la soo dhaafay dabeelaha laga dareemayo magaalada Muqdisho waa kuwo aan waayahan la dareemin isla markaana u muuqda inay yihiin kuwa aad u xoogan Abdulcasiis Soomaali Cable magaalada Muqdisho